سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibada qiimaha badan loo kusoo dhawaada koorsada html oo si taxana uga baahino kanaalkan. waxaan qaadan doonaa casharkii 12aad inagoo ku baran doonaa sida table loogu sameeyo html. sida caadiga table waxaa loo yaqaanaa shaxan laga helayo columns iyo rows. si kale haddii aan u dhigno shaxanku in uu lahaado jiifutax iyo joogutax kuwaas oo la gelin karo xog. haddaba table-keenu waxa uu ka koobnaan doonaa 5 column halka rows-ku ay intaa ka badan karaan ama ay leekaan karaan. rows-kuna had iyo jeer ma laha tiro xadidan, waxay ku xidhan yihiin hadba xogta aad geliso. haddii aad magacyaal badan geliso rows-ku way badanayaan, haddii aad in yar gelisana way yaraanayaan. ma laha markaa tiro xadidan. waxaynu aadaynaa editorka notepad++ si aynu ugu sameyno table-ka. waxaynu joognaa page-kii aan kusoo sameyn jirnay casharadeenii hore. maanta waxaynu sameynaynaa casharkeenan 12aad sidaynu casharka hordhiciisii kusoo tilmaanay table-na waxaan ka bilaabi doonaa inuu page cusub soo furano. tan iyo casharkii labaad waxaynu soo isticmaalaynay halkan page, laakiin page cusub ayaan maanta furanayaa. adiguna waad furan kartaa page cusub ama kaagii hore ayaad isticmaali kartaa. markaa si aan usoo furto waxaan tegayaa file, waxaan kasii dooranayaa new. daaqad cusub ayaa inoo soo gashay. waxaan kasii dooran doonaa file si aan u save gareeyo filekan, oo haddii aanan save gareyn codesku aanay sax noqonaynin. save ayaan tegi. waxaan kasii dooran halkaan dhigayo desktop ayaan dhigayaa. magacaan u bixinayo table markaan qoro sumadda ay leedahay luuqadani baan raacinayaa .html haddii aanad faylka raacin faylka looma aqoonsanayo inuu yahay html. marka waa muhiim inaad ogaatana waa waajib. save ayaan leeyahay. markaan save gareeyay daaqadan cad waxaan ku qori doonaa codeskii html. markaan qoro xaggan hoose ayaan kasoo xidhi doonaa html, waliba waxaan ilaaway calaamadda slash. halkan baan imaan doonaa, waxaan qori doonaa head, isna taagaas ayaan furi doonaa oo qaybtii kore ee page ah. hoos baan u degi, waxaan halkan kasoo xidhi doonaa headka. headkii markaan soo xidhnay waxaan sameynaynaa inaan ku dhex qorno taagii inoo haynayo ciwaanka website-ka ama page-ka oo noqonayo title. markaan qoro ciwaankii aan rabay inaan u bixiyo website-ka, markaa table baan leeyahay table in html. waayahay, waxaan soo xidhayaa tagga title oo aan halkan kasoo xidhi doono title. waan soo xidhay. hadda waxaynu qoraynaa taggii inoo haynayay xogta aan soo gelin doono page-kan ama website-kan. waxaan qoraynaa body oo aad wada taqaanaan. body maadaama ay tahay meeshii wax lagu qorayay, baar baan hoos u degi doonaa. waxaan kasoo xidhi doonaa html-kan agtiisa. waxaan leeyahay body. hadda waxaynu dhammaystirnay qaybihii aasaasiga ahaa ee page-ka. waxaynu bilaabaynaa inaynu table-kii sameyno. horta waxaynu tijaabin doonaa intaynaan table-ka bilaabin inuu shaqeynayo faylkeenani. markaa run ayaan tegi doonaa. launchina chromekii kusoo kicino. table in html wuu shaqeynayaa. waxaynu rabnaa inaynu bedelno background-ka page-ka. waxaynu qoraynaa style equal wada calaamadood, kadibna waxaan halkan qori doonaa background minus color. background colorka waxaynu ka dhignaa green. Ctrl S. halkan ayaynu ka bilaabi doonaa taggii table-ka
oo waxaynu qoraynaa table marka aan sameyno tableki waa kii inoo haynayo xogta oo dhan sida columnska rowski cidii la soo gelinayo xogtaas oo dhan tag ahaynaya waa table marka xagan baan soo xidhi doonaa dhammaan xogta iyo columnskuna waxay ku dhex qormayaan tagga table wixii ka baxsani tagga tableka kuma jiraan halkan baan ka soo xidhaya table markaan halka ka soo xidhay waxaan furi doonaa taggii inoo haynayay columnska yani sida student name student id course-ka columnyada noocaas ah taggii inoo haynayay inuu qori doonaa waxaanu leenahay tr oo u taagan table row waayahay hoos baan u degi doonaa waxaan halkan qorayaa table rowkii baan soo xidhayaa tr labada tr waxaynu dhex gelin doonaa columnskuna waxay noqonayaan th oo ah table header qaybta kore ee tableka halkan waxaan ku qorayaa sid baan qoraynaa sid oo taagan student id waa columnka koowaad waxaynu iska soo xidhaynaa th hoos baynu u degaynaa columnka xigaynu qori doonaa oo aynu ka dhigi doono student name waayahay waxaynu soo xidhaynaa th columnka xigayaan qoraynaa wuxuu noqon doonaa class th columnka afraad waxaynu ka dhigi doonaa course-kii uu qaadanayay ardaygaasi th columnkeena ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa time waqtigii la dhiganayay course-ka th control s waxaynu aadi doonaa browserkii waxaan refresh garaynay page-keenii columnskina waa kuwan iyagoo aan habaysnayn waxaynu sameyn doonaa bal inaynu columnskan xog soo gelino student id-giisa soo gelino nameka magaca soo gelino classka gelino course-ka xilliga la qaadanaya gelino timeka waqtigii la qaadanayay intaba xogta waynu soo gelinaynaa page-keena ku laabanaynaa columnka aynu soo sameynay aynu hoos uga degaynaa waxaynu qoraynaa table row kale tr hoos baynu u degaynaa halkan baynu tr ka soo xidhaynaa table rowgii tr labada tr dhexdooda waxaynu qori doonaa xogtana waxaa tahay td table data oo datadii la gelinayo tableka marka xogta la gelinayo columnka koowaad waxay noqon doontaa student id oo ah in la geliyo tiro sida one oo kale number 1 waxaan soo xidhayaa td markaan soo xidho waxaan sameyn doonaa columnka xigay inaynu xogtiisa isna gelino magac baynu gelin doonaa waxaynu ka dhigaynaa waxaan soo xidhanaa td columnka saddexaad ayaynu soo gelinaynaa isna xog td columnka saddexaad muxuu yahay class td markaad halkaa ka furto aad dhamaystirto columnka waa inaad xaggan ka soo xidhaa waxaynu qori doonaa columnka afraad xogtii soo gelisay td waxay noqonaysaa course kala qaadanaya oo html td waayo hoos baan u degayaa columnkii ugu dambeeyay xogtii galaysay ayaan qori doonaa td xogta galaysaa waxay noqon doontaa time 4 pm td hadda hal qof ayaynu soo gelinay xogtiisii oo hal row ah waayo bal page-kii aynu eegno refresh garayno rowgii aan gelinay number 1 wuxuu hoos yimi student id halka magacuna uu hoos yimi student name sidoo kale classkuna class a html wuxuu hoos tagay columnka course halka 4 pm iyana ay hoos tagtay time waxaanu sameynaynaa bal inaynu xog intan ka badan soo gelino ilaa 5 row si aad waqtiga u ilaaliso waxaad sameynaysaa rowga halkaa ka furan iyo rowga halkaa ka soo xidhan intaas ayaad copy garaysanaysaa control c markaad copy garaysato hoos baad u degi halkan baad ku paste garay waxa baad bedelaysaa halkaa tuubad ka dhigaysaa
magaca sidoo kale waad bedeleysaa meelahan oo kale. Class-kana B kala HTML aan bedeleynaa, waxaan leenahay Photoshop ka dhig. Photoshop 5pm Ctrl S ilaa 5 ayaan soo gelin doonaa. Table row-gaas baad mar walba hoos uga degaysa markaad paste garaynayso. qoraalkii markii hore aan sidii baynu halkaa ku paste garaynayna. waa in waxoogaa space u dhaxeeya tr ka xidhan iyo tr ka furan row-ga dambe. haddii kale waxaa laga yaabaa inaad ku khalkhasho, marka inay ku kala saarnaadaan ayaa fiican. waxaan sameynaynaa kana inaan beddelno xogtiisa, waa qofkii saddexaad. magacana way bedelaynaa. waayahay halkan class classka way sugadaa. waxaynu ka dhigaynaa halkana CSS. halkan 4pm ayaynu yana u deynaynaa. hoos baynu u degaynaa ilaa 5 row ayaynu soo gelinaynaa ama 5 qof datadoodii. Ctrl V waa qofkii afraad, ID-giisu 4 buu noqonayaa. magaciisana waynu bedelaynaa, waxaynu dhahaynaa Ducaale Soor. waayahay classka waxaan ka dhigaynaa R, kana waxaan ka dhigaynaa af Soomaali. waqtigana waxaan ka dhigaynaa 5:05pm. row-gii u dambeeyay ama qofkii ugu dambeeyay ayaynu soo gelinaynaa. halkan baan ku paste garayn. halkan waxaan dhigayaa 5. magacana sidoo kale waa bedelayaa. waayahay classka HTML ka oo kale aan bedelaynaa, waxaan ka dhigaynaa Arabi. waayahay xog 5 qof ayaynu soo gelinay. kii koowaadi waa kan xogtiisii, sidoo kale kii labaad xogtiisina isna waa kan. ka saddexaad xogtiisu halkan ay ka bilaabmaysaa, halkan ay ku dhamaanaysaa. kan afraad sidoo kale halkan. kan u dambeeyana waa kan. waxaynu tegaynaa intaynu Ctrl S nidhaahno refresh. oo ka 5tii xogba waa kuwa soo galay. waxaynu sameynaynaa hadda table-kii xog waynu soo gelinay, laakiin table-kii waxaa ka dhiman qurxintii, kala nidaamintii. imika columns-kan xogaha hoos imanayo dhan waxaad moodaa in isku dhadhow yihiin, sidaa darteedna aan aad loo kala saarayn. marka xuduudo ayaynu u dhaxaysiin doonaa. sidoo kale table-keenana border amaba xuduud ayaynu kusoo xiri doonaa. waxaynu ku laaban doonaa page-kii. waxaynu tegi doonaa table halkaynu ka furnay. markii hore table halkaas baynu ka furnay. waxaanu ka soo xidhan yahay xogta oo dhan halka u dambeysa oo halkana. xogtu markaa table-ka ayay ku dhex qormaysaa. amarka aynu siino table-kuna wuxuu saameyn doonaa xogtaa ku dhex qoran oo dhan. marka hore waxaynu sameynaynaa inaynu bedelno background-kiisa. style equal background minus color. okay, 2 dhibcood. waxaynu qoraynaa background-ka table-ka, waxaynu ka dhigaynaa gray. okay, calaamadahana waynu ku soo xidhaynaa. waxa sidoo kale aynu bedelaynaa color-ka farta ku qormaysa. color 2 dhibcood, waxaynu ka dhigaynaa yellow. waxaynu bedelnay background-kiisa, sidoo kale farta ku dhex qormaysa. waxaynu sidoo kale bedelaynaa size-ka farta. labada calaamadood horta aynu xaggan iskaga soo xidhno. labada calaamadina mar walba ha ka dambeeya markaad style-ka ku dhex qorayso amarada. waxaan qorayaa font size 2 dhibcood. font size waxaynu ka dhigaynaa size-ka farta ilaa 20 px ayaynu ka dhigaynaa. Ctrl S. page-kii aan dib ugu laabanaynaa browser-ka. waxa uu yeeshay background, sidoo kale color-kiisina waa uu isbedelay. waxa sidoo kale aynu sameyn doonaa inaynu table-ka width-kiisana aynu kordhino, height-kiisana aynu kordhino.
xuduuda maxay tahay kala qaybinaya columns-kana aynu sameeyno. Page ayaynu ku laabanaynaa xuduudaha si aynu u sameeyno. Halka style ayaan ku qori doonaa border dabadeeda. Okay, equal labada calaamadood baan furi doonaa. Waxaan ka dhigi doonaa borderka awoodiisa ama dhumucdiisa ilaa 3 baa noqdaan leenahay. Borderka markaan sameeyno sidoo kale height-ka ayaynu xaggan iyana kordhinaynaa. Height waanu ka dhigi doonaa isna 300 meelahaas. Aynu xaggan baynu uga soo baxaynaa calaamadaha. Width-kana waynu kordhinaynaa. Width-kana waxaan ka dhigaynaa 600. waxaynu bedelnay height-kii sidoo kale width-kii border xuduudana waynu sameynay. Control S page-kii aynu eegno isbedelka ku dhaca. waan refresh gareynaynaa. Okay, width-kiisina wuu kordhay, height-kiisina wuu kordhay. Sidoo kale xuduudo ayaa laynagu sameeyay columns-kii oo hadda waynu kala garanaynaa. Column walba xogta saxda ah ee hoos imaanaysa. waxaynu sameynaynaa inaynu bal kala duwno columns-ka iyo fartu inay soo qoraal leekaadaan sidoo kalena ay isfar leekaadaan. Marka waxaynu tagi doonaa columns-ka. Tagga haya columns-ku xaggan buu ka furan yahay. waxaan qorayaa style equal labada calaamadood. waxaan qoraynaa background-kiisa ayaynu bedeli doonaa. Background 2 dhibcood. Background-kiisa waxaan ka dhigi doonaa black madow ah. calaamadahaas ayaynu ku soo xiri doonaa. Color-ka ku dhex qormi doona waxaynu ka dhigi doonaa yellow. hore ayaynu color-kan u soo siinay table-ka. marka qaybta table-ka waxaynu ka dhigaynaa white baynu ka dhigaynaa xaggan white. Okay, halkan iyana waxaynu ku sii daraynaa font family. waxaynu ka dhigaynaa Bebas. Font size-kana waan ka waaweynaysiinaynaa taynu table-ka soo siinay. Font size iyana waxaynu ka dhigaynaa 25 px. Control S. waxaynu columns-keena ku sameynay 4 isbedel. horta background-koodii inaynu black ka dhignay. Color-ka ku dhex qormaya inaynu yellow ka dhignay. Font family-ga ama nooca fartan aynu ka dhignay Bebas. Font size-kuna uu yahay 25 oo 5 inuu dheeraado qaybta table-ka ee qoraaladan kale. Control S page-kii waynu ku laabanaynaa. way refresh gareynaynaa. Okay, markaan refresh gareynay fartina uma eka fartan kale. sidoo kale color-keeda iyo awoodeeduna way ka duwan tahay. ha yeeshee qoraalkan sare column-ku ku dhex qoran yahay waxaad moodaa inuu aad u fidsan yahay. markaa fidsanaantaas ayaynu yareyn doonaa. waxaynu tegi doonaa page-kii. waxaanaynu aadaynaa halkan style dabadeeda. markaynu tagno height baynu dhahaynaa. height-kiisa yare. height equal labada calaamadood fur. waxaynu ka dhigaynaa height-ka 50 kaliya 50 px. Control S. Okay, hadda intii hore uu ka yaraaday. haddii aad u baahan tahayna intaa waad ka sii yareyn kartaa oo imika waxaynu ka dhigi karnaaba ilaa 30 baynu ka dhigi karnaa. 30. Control S. Okay, 30 markaan ka dhignayna waa uu sii yaraaday. waxaad moodaa inuu kan aad u soo baxayo. marka table HTML qaabkaas ayaa loo sameeyaa. adiguna inaad kan iyo mid ka qurux badan baad sameysaa waan rajeynayaa. casharkani wuxuu ahaa casharkii 12aad saynu hore u soo sheegnayba. casharada inoo harayna imika way iska kooban yihiin. ilaa 12 casharo hore ayaan soo qaadanay. kooraskana waxaa naga go'an inaan dhamaystirno oo aan qabyo uga tegin. maanta casharkeenu intaas ayuu ku eegyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.